geedka qorfaha waxa uu ka mid yahay dhirta ugu waxtarka badan ee bini'aadamka isticmaalo laguna daaweeyo xanuuno fara badan waxaana laga yaabaa qaarkeen inaan ogeyn faa'iidada caafimaad ee uu leeyahay geedka qorfaha intaanan muuqaalkayga u sii gudagelin channelka subscribe saar gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan mar walbo aan muuqaal soo gelino mahadsanid geedka qorfaha waa daawo dabiici ah waxaana lagu daaweeyaa xanuunada qaar waxaana ka mid ah xanuunada lagu daaweyn karo geedkan marka la isku daro asigoo budo ah malab iyo biyo qandac ah oo la cabo subaxdii ka hor quraacda waxa uu daawo u yahay xanuun kasta oo caloosha ku dhaca sida labalabada shubanka laabjeexa dibiridda gaaska iyo cunto xumidda wuxuu sidoo kale jidhkana ka saaraa sunta wuxuuna ka hortagaa kansarka ku dhaca maqaarka iyo beerka cabitaanka qorfaha waxa uu ka mid yahay cabitaanada ugu wanaagsan ee uu cabi karo qof walba oo qaba cudurka macaanka waxa uuna ilaaliyaa caafimaadka wadnaha waxaa ku jira qorfaha maaddo jidhka ka nadiifinayso bakteeriyada iyo noocyada kale ee jeermiska waxa uu ka mid yahay daawooyinka ugu wanaagsan ee lagu daaweeyo ilka xanuunka waxaa sidoo kale lagu daaweeyaa dhiigkarka dhammaan cudurrada maqaarka ayuu daawo u yahay waxaad ka helaysaa faa'iidooyinkaas caafimaad marka aad u isticmaasho qaabkaas oo ah koob biyo kulul malab qaando ah iyo hal qaando oo qorfo shiidan ah dadka qaba ilka xanuunka ha isticmaalaan ilaa 3 jeer maalintii waa ka mamnuuc inay qaabkan u isticmaalaan hooyooyinka uurka leh sidoo kale dadka qaliinka galay ayaa lagula talinayaa inaysan qorfaha isticmaalin ilaa 3 bil ee ugu horaysa sidoo kale marka qorfaha lagu darsado caanaha ayaa asigana faa'iido leh waxaana ka mid ah faa'iidada caafimaad ee uu leeyahay jidhkeena kow in uu u wanaagsan yahay jilbaha iyo kalgoosyada 2 waxa uu u wanaagsan yahay uurku jirta 3 cabista caanaha iyo qorfaha la isku daray ee la cabo galabtii waxa uu qofka siiyaa hurda aad u wanaagsan 4 waxa uu u fiican yahay oo lagu daaweeyaa hargabka 5 waxa uu jidhka siiyaa qorfaha iyo caanaha la isku daray faytamiinada iyo borotiinka muhiimka u ah jidhka